xeryahani qaxootiga Dadaab oo ay ku dhaqan yihiin tiro aad u badan oo Soomaali ah kuwa oo halkaasi soo gaaray wixii ka dambeeyay burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa kamid ah Soomaali halkani ku dhaqan dad siyaabo kala duwan ugu naafooway colaadihii ka jiray gudaha dalka Soomaaliya iyadoona dadka naafada ee halkani ku dhaqan ay ku midaysan yihiin dalado kala dhisan guud ahaanba xeryahani qaxootiga mar aan u kurgalay wax ka ogaanshaha xaaladda dhabta ee nololeed ee xeryahan ku haystaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee naafada ah ayaan waxaan la kulmay Matris oo ah madaxa guud ee naafada ku dhaqan xerooyinka Kaambicoos iyo Xagardheera wuxuuna iiga waramay dadka ay qaabilaan iyo waxa ay ku caawiyaan. My name is Vitalis Cheriot Koskei. I'm the rehabilitation officer working for LWF Dadaab program. Magacaygu waa Matris waxaan ka howlgalaa xarunta curyaamada ee hay'adda LWF ay gacanta ku hayso dadka naafanimada la nool ayaa ah dad u baahan daryeel qaas ah una baahan in laga garabsiyo dhan waliba oo noloshooda ah waayo waa dad inta badan u baahan garab qabasho sida awgeed hay'adaha samafalka ee xeryaha qaxootiga Dadaab ka howlgala ayaa waxa ay diyaar u yihiin in ay caawiyaan dadka curyaamada ah inta badan waxaan u qaybinaa joodariyo tooshash baaskiilada dadka naafada ah saliida lagu daliigo dadka naafada la talin dhanka isdhexgalka bulshada iyo dadka naafada ah iyo weliba fursado waxbarasho haddaanu nahay hay'adda u shaqeysa dadka curyaamada ah waxaan ka codsanaynaa shakhsi waliba in uu gacansiiyo dadka curyaamada ah hooyo walibana waxaan ka codsanaynaa in ay carruurta naafada xaafadaha jooga ay keento goobta daryeelka dadka naafada. mid ka mid ah hooyooyinka aan halkaas kula kulmay ayaa iyadana dhankeeda waxa ay ka dhawaajisay in adeegyo muhiim ah uu wiil ay dhashay ka helo goobtani waxa ayna codsatay bulshaweyntani in naafanimada aan dadka lagu faquuqin. iskala markii hore fadhiga kama soo kici jirin laakiin intii daliiga lagu bilaabay oo lagu dadaalay oo habeenkii iyo subaxii la daliigayo sida hore wax dhaamaad u malaysaa maanta hadaan la daliigin asagaaba ka abuuro xulay idaliig kaala idaliigan rabaa idaliig marka aad baa wax looga garto diraya fariin wanaagsan oo in caryaamiinta la caawiyo in aan kalmada xun la dhiin in hadalkooda loo dhagnuglaado in markay wax dadka ka codsadaan la siiyo waxaasaan hooy u baahanahay markuu dhaca Cabdirsaaq runtii ma fadhin karo waan soo istaagaya waxaan rabaa bulshada in dadka caryaamiinta u nuglaadaan hadal kasta oo ay rabaan in loo yeelo maxaa yeelay curyaaniinta qalbigooda waa iska dheeri wax walba iska jecleen haddii aad dhahdo war iga tag curyaan baa tahay naxdin bay ka qaadaan farxad waxay ku jirtaa nanacaan rabaa waaya because Cabdirsaaq oo kala tusaale wuxuu dhahaa hooyo iskuulaan rabaa okay soo bax iskuulkan ku geeyna hooyo suuqaan rabaa wuxuu rabaa wax walba fiican inuu fiirsado waa in wax walba oo curyaaniinta ay rabaan loo dhagnuglaado haddii aan la yeelin canuga waxba ma baran karo dismuraalu noqonaya maskaxdu ka dhimanaya maskaxdiis inay fresh noqoto la rabo ay fiicnaato niyadiisa ay saafin noqoto hooyo kasta oo qaxootiga joogto ama meel kasta oo joogto oo curyaan dhashay waxaan ku waaninayaa in ay canugeeda iyo canuga walaalaheed ay dhaleenba ama ayay ha u ahaato ama hooyo ha u ahaato inay ku dadaasho. gabi ahaanba Soomaalidu ku dhaqan xerooyinka Dadaab ayaa caawinaad kala duwan ka hela hay'adaha samafalka iyadoona dadka naafada ay qayb ka yihiin dadka ka hela daryeelka wanaagsan. Axmed Maxamed Kaarshe TV-ga caalamiga Royal gobolka Waqooyi Bari xerooyinka qaxootiga Dadaab.